magacaabo Kulana Jiis oo kamid ah hay'adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya haatan kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee lagu soo doortay Galmudug ayaa xog dheer oo bixiyay waxa uu faahfaahin uga bixiyay sababaha keenay in ay fashilanto ama uu fashilmo qorshihii Villa Soomaaliya ay ku doonaysay mar kale in ay ku hanato ama ay mar kale ku guuleysato hoggaanka kursiga ugu sareeya ee dalka ama hoggaanka dalka xogtaasi baan idin soo gudbin doonaa bal ugu horeyn waxaan guulad oo dhinacayga fadhiyo weydiin doonaa arrintan iyo sida ay u dhacday iyo waliba faahfaahinteeda guulad soo dhaw aad baa mahadsan tahay saaxiibka ilka case daawadayaasheena meel walba ay barnaamijyadeena kala socdaan waynu salaameynaa wagaag Soomaaliya waa 15 bishan doorasho ka dhacday marka laga reebo wixii dadka la arkay iyo wixii la soo qoriyay inuu tabinaynin hadda oo doorashadii laga soo maalintii labaad hadda ay marayso shalay iyo maanta maalintii labaad ay tahay xogo badan baa soo baxay ku aadan doorashadan sida ay u dhacday sida nin qorshe uu watay ama koox qorshe ay watay uu uga fashilmay ama koox qorshe ay watay uu guul uga soo dhamaaday ama ay ku guuleysteen bal nabadiyo nolol maxaa hawshoodii iyo qorshahoodii iyo 5 sano wixii ay soo maleegayeen ay soo wadeen maxaa dhaxdo u galay oo kala didi aad ba marka loo mahadsan tahay horta xogtan aynu la wadaagayno dadka waa xog si sir ah ku soo baxday waxaana ku muuqanaysa ilka casow inta dhagarta la maleegay ay la ekayd iyo qorshaha la dejistay inta oo la ekaa iyo meesha lagu socday Kulana Jiis oo in badan warbaahinta magaciisa laga maqlay laakiin muuqiisa ay waadhow ugu horeysay dadka intooda badan kana tirsanaa hay'adahan sirdoonka nisaga la shaqeynayay intii uusan xildhibaanka noqonin ka hor waxa laga soo bandhigay cod sir ah oo uu kaga hadlayo min bilow ilaa iyo dhamaad kooxdii farmaajo siday wax u maleegeen meelaha ay wax ka khaldameen iyo sida ay wax uga waxaysmeen Kulana Jiis 32 daqiiqo kaga xog waramaya si niye ah jabki ku dhacay waxa uu ka waramayaa meelaha ay wax ka khaldameen oo marka qaarkood uu qoomameynayo waxa uu leeyahay oo isticmaalaya khaladkii ugu weynaa ee aan naftayda ka galay yay ahayd markii aan arrimaha doorashooyinka isagu ahaan markii hore kooxdan farmaajo ninka ay ugu tala galeen inuu doorashooyinka hago marka wuxuu leeyahay khaladkii ugu weynaa ee aan naftayda ka galo yay ahayd in aan amniga doorashooyinka iyo howlaha doorashooyinka aan ku wareejiyo Rooble waxa uu marka ka soo sheekeynaya wixii ay qorshaysteen horta markii hore noola wadaag bal waa tii lagu duulay maamul goboleedyada wuxuu yiri maamul goboleedyadii Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyaga waxoodii waxanaga waan ka samaysanay waxa laf dhuun gashay nagu noqday ee mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaad qorshe kasta oo diyaarsan naga fashilinay waxay ahaayeen maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waata qaabka ay rabeen inay wax u doortaan UEFA wuxuu yiri doorashooyin dadban in la aado qorshaha naga ma ahayn waata waxna lagu qasbay oo laga adkaaday iyo ahaa waxa uu qorsheysnay in doorasho qof iyo cod ah laakiin aan maadaama deegaano badan la gaari karin loogu tala galay in ilaa dad 5,000 oo qof ah ay ka qayb galaan ay qabtaan waxa ay qorsheysteen oo dadkii codayn lahaa ay xitaa nambaradii u kala codayn lahaa dadka ay si kala qorsheysteen wuxuu yiri 5,000 qof 4,800 iyo wax la jira waxaan ugu tala galay inay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ay u codeeyaan inta ka soo hadhayna si wixii aan loo dhihin orde bahasha baraxtira oo 100 iyo waxa yar ka soo hadhay ah waxaan u qaybinaynay dadka kale oo annagaba u sheegaynay oo lahayn dadkaas siiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4,000 iyo waxaas yaa u codeynaysa hawshaasi waana fashilantay way socon weyday khaladaadka kale ee ka dhacay ee uu qoomameysan yahay fartana dhexda ka qaniinsan yahay waxa kamid ah muddo kororsiga wuxuu muddo kororsiga horta muddo kororsiga intaan u galin wuxuu ka sheekay qaabka baarlamaanka loo kala laalushay loogu guuleystay in la kala qaybiyo loogana dhigo kuwa guulwadayaal ah oo farmaajo waxa uu rabo ay afkooda ka soo bixi jirtay wuxuu yiri tiro 70 xildhibaanada kamid ah waxaan ku gadanay codadkoodii inaan wasiiro iyo wasiiro ku xigeenna aanu ka dhignay tiro kale oo uu 60 ku sheegay waa Kulana Jiis ninka hadlaya ee waxaan qiranaya
tiro kale oo uu 60 ku sheegay wuxuu yiri iyaga bishu markay ay dhamaato yaa qasnadaha u furi jiray qasnadaha la furi jirayna uu sheegay wuxuu leeyahay qasnada gobolka Banaadir ee canshuurtii dadka masaakiinta ee Muqdisho laga aroorinayay iyo lacagta qadar yaan u qaybin jiray nimanka lixdameeyadaan iyagana codadkoodii sidaas yaan ku gadanay kuwa kalena qaabab uusan shaqeeyxin yiri iyagana waanu ku gadanay inta marka laga yimaado baarlamaanka wuxuu ka soo reebay in yar oo uu yiri inay qayladaan ugu talagalay qayladoodana meelahaas ka dhageysan jir marka ma xasan firin biima salaadii waa salaadii kooxdii meesha uu ka dhaqiiqayni jirtay wuxuu ka sheekeynayaa mursal bahdilaadii ku sameeyeen iyo qaabkii ay ula dhaqmeen iyo weerarkay ku qaadeen iyo wixii dhacay korontadii la goostay wixii uu ka sheekeynaya waxa ku dheeraan meeno waraysiga qaybta dambe ugu siideynaa dadka aan dul marayna waxa kale oo hadana ka sheekeynaya aqalka sare sida fadhiidka iyo hawlgabka ay uga dhigeen عبد حاشو هوغاميني wuxuu leeyahay aqalka sare waxaan fadhiid iyo hawlgab uga dhignay sidii xadiis daciif oo xadiis kale lagu nasakhay laga saaray yaani iyagana ka dhignay aqalka sare oo baarlamaanka kaliya oo baarlamaanka aan sidan u qaybinay yaan ka soo reebnay muddo kororsigii markuu u yimid wuxuu sheegay in ciidankii ay ugu talagaleen jagooyinka ugu muhiimsan ay u dhiibeen uguna talagaleen in dalkan ay ku maamulaan iyagii laga hoos shaqeeyay oo qaarkood laga hoos baxay anigii Saadiq Joon ahay hor istaagay muddo kororsiga iyo ragii kale la midka ahaa badbaado qaran iyo ciidankii marka ciidankii sida aan ugu talagalay iyagana nooma shaqeeynin guul daradooda min bilow ilaa dhamaad waxa uu afka salka u saaraya oo uu aad ugu nuxnuxsanaya in Jubaland iyo Puntland ay talaabo ka rogi waayeen wax kasto ay isku dayeen inay sameystaan labada ay mari waayeen ay labada ahaayeen intii kalena ay soo dardareen marka waraysigu aad buu dheeraa waxyaabo badan buu ku ifinaya waxa uu ka sheekeynayo waxa mararka qaar kood isdhihi miyaad riyoonaysaa mise ninku isagii baa qiranaya yu ka sheekeynaya marka waxa jeclaan lahaa bal daawadayaasheena inaynu iyaguna inala daawadaan oo aynu ugu duuno qaabka uu codkaasi u dhacay waraysi ma aha waa cod sira oo dad iyaga ah isku xog weeraysanayeen oo laga soo helo wagaag dawdal ku soo dhawaada codkaas sirta ah ee uu bixiyay oo dabcan dheer ninkaasi kamid ahaan jiray hay'adda sodonka qaranka Cabdullaahi Kulana Jiis haatan kamid aha xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo gala Galmudug yahay waxay horseed u noqotay arrintaas inaanu toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo Galmudug mar saddexaad waxa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu sameynay caraabin fara badan oo ka yimaadaysa dhinaca Puntland iyo Jubaland oo lagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo daaqulay ciidamo aan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin ilaa iyo dadka la fahansiiyo kuwanagii in la kala yaaciyo oo anaga dibna loogu soo adeegsado xoogagii muhiimka ahaa ee ku xisaabtamaynay saraakiishii ugu cuscuslaa ee lahayn tallaabooyinka ugu adag ee qaadi doonaan ilaa anagii dibna loogu soo adeegsaday oo na curyaamiyeen hindisahanagii ugu dambayn wuxuu ku soo dhamaaday wax la dhihi karo Gablan iyo dhaxal arrintii qorshihii muddada dheer aan sircinaynay ee 4 sano ah iyo weliba 1 sano oo lagu daray wuxuu ku soo dhamaaday oo ku soo afsharmay ugu dambayntii nidaam doorasho oo aanan anagu ku talagelin oo doorasho dadban ah in waddanka la geliyo muddadaas waxaa nalaga diiday oo aan soo marnay doorasho qof iyo cod ah inaan isku daynay inaan waddanka ka qabanno doorashada qaadkii aan ugu talagalay oo ahayd in ay nagala shaqeeyaan guddiga doorashadu awooddaas wax lagu dooranayo iyo nidaamka maamul goboleedyada aynan marnaba shaqo ku lahaanin waxa ka wada shaqeynaya ay noqdaan dawladda federaalka iyo guddiga doorashada nidaamkii aanu rabnay aan ku talagashanayn oo ahaa inaanu isugu keenno meel dad 5,000 tiradoodu dhan tahay oo 4,895 aanu ognahay in ay ku ridi doonaan codadka Maxamed Cabdullaahi
120 inay ku ridi doonaan ciday rabaan ama aan annaguba u sheegayno dhahayna si baashu ayna 100% u noqonin 99 ha noqote dad kale ku rida nidaamkii noocaas ayaan u qorshaynay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyay oo ka hor yimid Jubbaland iyo Puntland ugu dambeyntii taankii wuxuu soo dhamaaday oo ku soo dhamaaday nidaamkii muddo kororsiga oo kalifay in lagaga awood roonaado magaalada Muqdisho dagaalkii aan ku galay kaas oo sababay in aan aqballo nidaamka doorashada dadban nidaamka doorashada dadban aan aqbalay iyo inaan wareejiyo anigu nidaamka xilka hogaaminta doorashada oo aan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha arrintaas oo ahayd khaldaadkii anigu aan ka galay nafsadayda iyo ummadda Soomaaliyeed basaan aaminsanahay midkii kuwii ugu waaweynaa inay ka mid tahay oo ahayd markii aan Maxamed Xuseen Roble ku wareejiyay dhammaan awoodihii doorashada ee waddanka anigoo aaminsan inuu yahay nin farmi kara oo wadiiqada aan u marayo doorashadana hadda kadib ay isaga tahay markii aan lahaa anigu waan xaroonayaa isagaan u dhiibayna aan aaminsanaa daaha gadaashiisa inaan u fadhiyayo midig iyo bidixna inuusan u leexanaynin dhaga kale iyo indha kalena inuusan yeelan doonin sidaan wax ugu yeedhiyo oo keliya inuu ku socon doono ciddii ka hor timaadana inaan dhihi doono ciddii awalba waddanku ka degi lahaa wakaa nin kastoo hawshan galana dadkaan baa ka hor imanaya hebel iyo hebel ah taas oo haddana fashilin ay ku sameeyeen isla Puntland iyo Jubbaland kadib markay isaga laftiisii igala wareegeen ka dhaadhiciyeen inay wada shaqayn yeelan karaan horay u riixeen inuu nidaamka doorashada dadban bilaabo baarlamaankii Maxamed Mursal oo isaga aan ku bedeli lahaa intay si gaara u faqeen ay diyaariyeen qorshihii baarlamaanka lagu kala tuuri lahaa inay magaalada Kismaayo ka soo doortaan 4 qof oo baarlamaanka cusub ee 11aad ah si uu u cancel garoobo baarlamaankii 10aad meeshan ay uga baxdo wax awooda oo aan ku cayrin kara Maxamed Xuseen Roble arrintaasi waxay soo jiiday aniga oo xilkii ku wareejiyay Maxamed Xuseen Roble in la kansalo oo la nasakho baarlamaankii Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu gudoomiyaha ka ahaa taasina waxay sababtay inaan aniguna noqdo nin awoodii wareejiyay baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan aan u fariisin kara Roble oon xil kaga qaadi karan inaysan meesha ku jirin markaas oo khadka ka baxay qaybo ka mid ah baarlamaankii 11aad u kas loo soo saaray si macnihii uu taangiyo si kaaki loogu geliyo shaarad bir ah ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Roble oo iga itaal roonaado fursadaasina waxay noqotay mid aan anigu bixiyay oo lagu guuleystay liiga guuleystay waana takaliya dhinac la iigu lagday ilaa iyo haddana arrimihii aan soo tircinayay muddada 5 sano dhammaanba gacantayda ka saartay mudanayaal iyo marwooyin waxaasoo dhan iyaga oo dhacay waad ogtihiin inaan ahay maquuste min aan samrin waxaanu adeegsanay waxyaabo fara badan waxaanu ku dhaqannay 5 sano lasoo dhaafay inaanu kala qaybino baarlamaanka inaanu dhex galno inaan u kala qaybino 3 qaybood oo muhiim ah oon gacanta ku hayno qayb 60 iyo dhowr ah ama 70 oo aanu wasiirro iyo wasiir ku-xigeen ka dhigno si aan codkooda 100% gacanta ugu hayno waxaa kale oo aanu ka soo dhex soconay kooxo gaar ah oo aanu danahooda shakhsiyadeed u fulino dhaqaalena ku aaminsiino bil walbana aanu u furo oon u fasaxnay khasnadaha lacagaha ka imanaya dhinaca gadar ama khasnada gobolka Banaadir oo aanu halkaasna howlgab kaga dhigno ugu yaraan
lixdan kale oo baarlamaan ah waxaa kale oo aan abaabulanay kooxo iyaguna siyaabo kale ku shaqaynaya oo baarlamaana gebi ahaanba marka laga reebo aqalkii saroonu isagu nasaxanay sidii aayad ka dambaysa soo degtay oo kale ama xadiis burinaya soo degay yaanu kaa isaga u nasaxnay laakiin waxaan ku guulaysanay boqolkiiba 75 ama 80 inaan gacanta ku dhigno baarlamaanka aqalka hoose inta kalena inaan ka soo qaadno waxa meelaha iska qaylqayliya oon macno ku fadhiyin dhawaaqooda la dhagaysto laakiin wax awood ah aan ka yeelan karin golaha dhexdiisa markii la doonana lagaba xiran karay isudda waxaanu ku guulaysanay in aanu garaacno oon caydhino guddoomiyihii si fool xun weliba guddoomiyihii baarlamaanka ee koowaad ee horeen ugu yimid anigu nidaamka waxaanu mar labaad ka tilaabo qaadnay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo aanu ku khasabnay in uu macnihii nala shaqeeyo kadib markii meel uu ciirsado u waayey awood aanu ku caburinay baaritaan markaan ku samaynayna aan ogaanay inuu yahay nooc budhkumaal leh haddii la garaaco la isticmaali karo kadib aanu u qorshaynay in garaacidda kadib dib loo isticmaalo mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ku guulaysanay in aanu ka helno dhaqaale xoog leh waddanka gadar inaanu ogolaano xidhmooyin shidaal ah oo in u ogolaano waddanka gadar oo aan teknolojiyad fara badan lahayn laakiin leh kambaniye dhaqaale haysta inaanu u ogolaano xidhmooyin fara badan oonu xiriir kula yeelano oo waddanka shidaalka ku jira ka mid ah inay iyagu soo saaraan oo iyagu ay doontaan oo la yimaadaan kambaniyadii intay la shirkoodaan la qodi lahaa si ay sheerkooda uga helaan oo 10kaas xidhmo ugu yaraan gadar kambani ah oo dhaqaale haysta iyo kambani u wato teknolojiyadii iyo dhaqaalihiiba haysta ay shirkad sharing ah ku noqdaan xidhmo walba annaguna oo ka faa'iideyna dhinaca gadar inay nagu taakulayso dhaqaale ballaaran dhismo ciidan qalabayn dhinaca hubka ah oo si farsamo oo yaryar oo kala dambaysana loo siinayo oo aanu doonaynay inaanu kula wareegno awoodda dalka waxaanu tixgelin dheeraa siinaynay wakiilada ay gadar noo soo dirsato annagoo danaha naga ilaashanayna ilaa xaddii aan ogolaanay in kursigana lagula fadhiyo fashil walba ha nagu ahaato maxaa la dhihi jiray maxay guddantiibuu fuudka ugu jiraa oo kale marxalado ah yaanu la soo marnay annagoo garanayna inay tahay arrin kharaad in waddanka iyo ummadda dhexdooda ay faashil ka ahaato in kursiga la igula fadhiyo haddana magaciisii dantiisu ugu jiraa inuu mahmaaha la dhahaa jirtay anu aada uma garanayo mahmaahda aada uma garanayo mahmaahdaas yaa jirtay marka mahmaahdaas annagoo adeegsanayna waxaan macnihii na soo martay oonu aqbalay inaan nalagula fadhiyo kursiga waxaas oo halgana waxaan u maraynay oona ogolaanayna in kursiga nalagula fadhiyo waa danta soomaalida danta ummadda soomaaliyeed yaanu ilaalinaynay sidii dowladnimada soomaaliyeed aanu ku dhisaynay o aan waxaasoo dhib ah u maraynay waxaanu la dagaalanay kenya oo aanu ka hor tagnay ummadda soomaaliyeed waxaanu ugu qabanay toosh adag cadaawaddii ka dhexaysay etoobiya iyo soomaaliya waanu rarnay waxaanu u rarnay dhinaca kenya kadib markii aan isku afgaran weynay arrimaha jubbaland kadib markaanu ka codsannay inay ciidanka kismaayo degan iyo ceelwaaq labaduba nala shaqeeyaan inay awaamiirta ka qaataan dowladda federaalka ah
inaanu stateka ciidamo geysanay inay noo fasaxaan oy nagula shaqeeyaan isbedelada aanu doonaynay inaanu ka samaynay stateka inay nagula shaqeeyaan markii arrimahaasoo dhan ay ka hor yimaadeen oo kenyaanku ay go'aansadeen inay yihiin ciidan u yimid hal ujeedo oo ah inay la dagaalamaan nimanka afka duuban oo keliya laakiin cid la caburinayo iyo cid aan la caburinaynin iyo ciidan xoog meel lagu geynayo iyo ciidan xoog meel laga qaado waxyaabahaas inuusan shaqadooda ahayn halkaa markii aanu dhaafin weynay waxaa nala habboonaatay in aanu foxka iyaga saarno dhankooda indhaha dadka soomaalidana aanu xagga u wareejinno xiisado aan jirinna aan abuuro oo aanu doonayno inaanu dadka soomaalida kaga dhaadhicino cadowgooda koowaad inuu yahay Kenya mar walba cadowga madaxweynuhu wuxuu la mid noqonayaa cadowga ummadda xaalad kasta oo jirta ninkii fulin waaya danta madaxweynaha waa nin wuxuu la mid noqonayaa oo lagu qaadayaa kiiska nin fulin waayay danta ummadda Soomaaliyeed taasaan ku qaadnay waxaanu ku rognay cunaqabatayn waxaanu joojinay jaadkeedii waxaanu fursadaas siinay dhinaca Ethiopia oo iyadu noo nuglaato noo ogolaatay waxtarkeedana aanu durba ka dareenay ina siiba badnaan laakiin dhinaca magaalada Baydhabo inkastoo aan aaminsanahay haddaysan dagaalkii gelin siyaabo fara badan inay wax noo tari lahayd aan aaminsanahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad mar labaad doorataan waxaanan ballan qaadayaa inaan dagaalkii halkaygii ka sii wadi doono dadaaladii inaan halkaygii ka sii wadi doono inaan isku dayi doono Hirshabeelle iyo Galmudug ujeedooyinkii aan ka lahaa si buuxda inaan u gaari doono 4 sano 2 sano ee hore gudahooda waxaan aad iyo aad try gareynayaa Jubbaland soo afjarideedu inaysan ka badan doonin 1 sano ama 1 sano iyo bad halka waxaa ka suurageli doonta in aynu garab tirno Puntland isla markaana ay inoo sahlanaato Puntland sidii garabkeedii kale la jabiyey bidix garabkeeda midigna sidii loo jabin lahaa ama iyada looga tallaabo qaadi lahaa doorashada ku xigta waxaan rajaynayaa in ay si buuxda haddaad ay doorataan 4 sano ee soo socota doorashada ku xigta waxaan rajaynayaa oo ballan qaadayaa in ay xaaladdu noqon doonto inaanan wax cod ah idinka baahanin idinka anigu isku filaado gaaray isku filaansho buuxa oo dhinaca codka ah isku filaansho buuxa oo dhinaca doorashada ah noocyada doorashada ay noqoto mid aan tartan iyo ka wada hadal lahayn nidaamyada lagu gelayana uu noqdo nidaamyadii naga dhicisoobay ee hadda naga katibay inaan si buuxda u gaari doono idinka oo aniga i taban taabinaya doorkii horebana idinku i doortay inkastoo aan idin sheegay kuna orolaystay waxyaabo fara badan oo Ethiopia ay ka mid tahay haddana taas way iska caadi waa arrimaha doorashada wadan walba taas oo kala sameeya cid walba oo doorasho galaysaana samaysa in waxa aynu fulinaynin ay ku orolaysato mudanayaal iyo marwooyin nin Soomaalinimada nacab Ethiopia ma iloobin laakiin dan baa ii geysay kaliya waxaan u arkay inay tahay wadanka kaliya Soomaaliya in la caburiyo dad kamida marka loo baahdo ama in meelo kamida weerar laga fuliyo haddii loo ogolaado iyada danaheeda meesha kaliya ee aan ka helayo baan u arkay inay iyada tahay macluum ma aha inaan iyada jeclahay dantayda baan doonayay inaan ku fushaday iyada sidaan idinkaba dantiina idinku fushaday doorkii hore oo kale yani idinka dhaadhiciyay inaan iyada wadanka ka dabargoynaya kana tirtirayo
lana xisaabtamayo xukuumad u gacan gashana aanan noqonaynin iyaga laftooda markaan danahayga ku gaaro haddayna idilinba iyagu oo aysan isfahmin aysan dhankaa caqabada igaga soo bixin waxa ii qorshaysnayd inaan iyaga laftooda dibadda u tuuro banaanka u tuuro heshiisyadaanu gallay waxaa ka mid ahaa inaan soo dejiyo ciidanka badda ee Ethiopia magaalada la yiraahdo Barawe heshiisyadan gallay waxaa ka mid ahaa inaan soo dejiyo ciidanka badda magaalada la yiraahdo Hobyo dekada Berbera heshiis ay ku jireen iyo sheer ay ka qaateen baa jiray Ethiopia oo aniga igaba dadbanaa waxyaabahaas oo dhan heshiisyada noocaas ah nidaamka dekadaha dee kolley Ethiopiana danbay u tahay way u ahayd innagana lafteedana danbay inoo ahayd laakiin aniga shakhsiyan danta iigu jirtay gaarka waxay ahayd inaan hela ciidamo Soomaalida la soo duldejiyo in ciidanka badda ee Ethiopia uu yimaado Hobyo iyo inuu yimaado meesha la yiraahdo Barawe inaan waddanka gebi ahaanba cunaqabatayn ku soo rogo isteediyadan dekadaha gaarka isticmaalaya in la helo ciidamo qalabaysan oo ka tallaabo qaada maraakiibta jihada ku socota oo dhan leexiya oo ku xidha jihooyin kale ismiska waddankana u roga hal meel oo center ah oo wax laga kala qaybinayo cunaqabataynta cirka ee meelaha qaarkood saaray waxaan soo watay oo iigu dhimanayd cunaqabatayn dhinaca badda ah inaan la imaado taa oo waktiga iyo duruufta iyo dantu ii diiday haddii aad iigu dartaan doorkan 40 sano waan gaari doonaa inaan soo dejiyo Barawe inaan soo dejiyo meesha la yiraahdo Hobyo in dekada Boosaaso iyo Garacad laga kontrolo Hobyo ciidan degan oo marag dekada Kismaayo in laga kontrolo Barawe hawluhu waxay u socon lahaayeen tartiib Barawe iyo Hobyo in la kala dejiyo 15,000 ilaa 20,000 oo ciidanka Ethiopia muqdisho lafteeda in ay nidaam saameyn ku yeeshaan umuurahaas oo dhan waxay sahli lahaayeen in anigu aan sii fadhiyo muddo dheer waysan yahay waxay horseed u noqotay arrintaas inaanu toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo Galmudug mar saddexaad waxaa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu samaynay caraabin fara badan oo ka imanaysa dhinaca Puntland iyo Jubbaland oo lagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo daaqulay ciidamo aan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin ilaa iyo dadka la fahansiiyo kuwanagii in la kala yaaciyo oo anaga dibna loogu soo adeegsado xoogagii muhiimka ahaa ee ku xisaabtamaynay saraakiishii ugu cuscuslaa ee lahayn tallaabooyinka ugu adag ee qaadi doonaan ilaa annagii dibna loogu soo adeegsaday oo na curyaamiyeen hindisahanagii ugu dambayn wuxuu ku soo dhammaaday wax la dhihi karo gablan iyo dhaxal arrintii qorshihii muddada dheer aan tircinaynay ee 4 sano ah iyo weliba 1 sano oo lagu daray wuxuu ku soo dhammaaday oo ku soo afjarmay ugu dambayntii nidaam doorasho oo aanan anagu ku talagelin oo doorasho dadban ah in waddanka la geliyo muddadaas waxaa nalaga diiday oo aan soo marnay doorasho qof iyo cod ah inaan isku daynay inaan waddanka ka qabanno doorashada qaabkii aan ugu talagalnay oo ahayd in ay nagala shaqeeyaan guddiga doorashadu awooddaas wax lagu dooranayo iyo nidaamka maamul goboleedyada aynan marnaba shaqo ku lahaanin waxa ka wada shaqeynaya ay noqdaan dowladda federaalka iyo guddiga doorashada nidaamkii aanu rabnay aan ku talagashanayn
oo ahaa inaan isugu keenno meel dad 5,000 tiradoodu dhan tahay oo 4,895 aanu ognahay inay ku ridi doonaan codadka maxamed cabdullaahi 120na inay ku ridi doonaan ciday rabaan ama aan annaguba u sheegayno dhahayno si bahashu ayna 100% u noqonin 99 ha noqote dad kale ku rida nidaamkii noocaas ayaan u qorshaynay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyay oo ka hor yimid Jubbaland iyo Puntland ugu dambeyntii timekii wuxuu soo dhamaaday oo ku soo dhamaaday nidaamkii muddo kororsiga oo kalifay in lagaga awood roonaado magaalada Muqdisho dagaalkii aan ku galay kaas oo sababay in aan aqbalno nidaamka doorasho dadban aan aqbalay iyo inaan wareejiyo anigu nidaamka xilka hogaaminta doorashada oo aan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha arrintaas oo ahayd khaldaadkii anigu aan ka galay nafsadayda iyo ummadda Soomaaliyeed basaan aaminsanahay midkii kuwii ugu waaweynaa inay ka mid tahay oo ahayd markii aan maxamed xuseen rooble ku wareejiyay dhammaan awoodihii doorashada ee waddanka anigoo aaminsan inuu yahay nin farmi kara oo wadiiqada aan u marayo doorashadana hadda kadib ay isaga tahay markii aan lahaa anigu waan xaroonayaa isagaan u dhiibayna aan aaminsanaa daaha gadaashiisa inaan u fadhiyayo midig iyo bidixna inuusan u leexanaynin dhaga kale iyo indha kalena inuusan yeelan doonin sidaan wax ugu yeeriyo oo keliya inuu ku socon doono ciddii ka hor timaadana inaan dhihi doono ciddii awalba waddanku ka degi lahaa wakaa nin kastoo hawshan galana dadkaan baa ka hor imanaya hebel iyo hebel ah taas oo haddana fashilin ay ku sameeyeen isla Puntland iyo Jubbaland kadib markay isaga laftiisii igala wareegeen ka dhaadhiciyeen inay wada shaqayn yeelan karaan horay u riixeen inuu nidaamka doorasho dadban bilaabo baarlamaankii maxamed mursal oo isaga aan ku bedeli lahaa intay si gaara u faqeen ay diyaariyeen qorshihii baarlamaanka lagu kala tuuri lahaa inay magaalada Kismaayo ka soo doortaan 4 qof oo baarlamaanka cusub ee 11aad ah si uu u cancel garoobo baarlamaankii 10aad meeshana ay uga baxdo wax awooda oo aan ku cayrin kara maxamed xuseen rooble arrintaasi waxay soo jiiday aniga oo xilkii ku wareejiyay maxamed xuseen rooble in la kansalo oo la nasakho baarlamaankii maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu gudoomiyaha ka ahaa taasina waxay sababtay inaan aniguna noqdo nin awoodii wareejiyay baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan aan u fariisin kara rooble oon xil kaga qaadi karan inuusan meesha ku jirin markaas oo khadka ka baxay qaybo ka mid ah baarlamaankii 11aad u kas loo soo saaray si macnihii uu kaanjiyo si kaati loogu geliyo shaarad bir ah ninka la yiraahdo maxamed xuseen rooble oo iga itaal roonaado fursadaasina waxay noqotay mid aan anigu bixiyay oo lagu guuleystay liiga guuleystay waana takaliya dhinac la iigu lagday ilaa iyo haddana arrimihii aan soo tircinayay muddada 5 sano dhammaanba gacantayda ka saartay mudanayaal iyo marwooyin waxaasoo dhan iyaga oo dhacay waad ogtihiin inaan ahay maquuste min aan samrin waxaanu adeegsanay waxyaabo fara badan waxaanu ku dhaqannay 5 sane lasoo dhaafay inaanu kala qaybino baarlamaanka inaanu dhex galno inaan u kala qaybino 3 qaybood oo muhiim ah oon gacanta ku hayno qayb 60 iyo dhowr ah ama 70 oo aanu wasiiro iyo wasiir ku-xigeen ka dhigno si aan codkooda 100% gacanta ugu hayno waxaa kale oo aanu ka soo dhex soconay kooxo gaar ah oo aanu danahooda shakhsiyadeed u fulino dhaqaalena ku aaminsiino
bil walbana aanu u furo oon u fasaxnay khasnadaha lacagaha ka imanaya dhinaca gadar ama khasnada gobolka banaadir oo aanu halkaasna howlgab kaga dhigno ugu yaraan 60 kale oo baarlamaan ah. waxaa kale oo aan abaabulanay kooxo iyaguna siyaabo kale ku shaqaynaya oo baarlamaana gebi ahaanba marka laga reebo aqalkii saroonu isagu nasakhanay sidii aayad ka dambaysa soo degtay oo kale ama xadiis burinaya soo degay yaanu kaa isaga u nasakhnay, laakiin waxaan ku guulaysanay 75 ama 80 inaan gacanta ku dhigno baarlamaanka aqalka hoose. inta kalena inaan ka soo qaadno waxa meelaha iska qaylqayliya oon macna ku fadhiyin dhawaaqooda uu dhageysto, laakiin wax awood ah aan ka yeelan karin golaha dhexdiisa markii la doonana lagaba xiran karay isudda. waxaanu ku guulaysanay in aanu garaacno oon caydhino guddoomiyihii si fool xun weliba guddoomiyihii baarlamaanka ee koowaad ee horeen ugu yimid anigu nidaamka. waxaanu mar labaad ka tallaabo qaadnay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo aanu ku khasabnay in uu macnihii nala shaqeeyo kadib markii meel uu ciirsada u waayey awood aanu ku caburinay. baaritaan markaan ku samaynayna aan ogaanay inuu yahay nooc udhkumaal leh, haddii la garaaco la isticmaali karo. kadib aanu u qorshaynay in garaacidda kadib dib loo isticmaalo. mudanayaal iyo marwooyin, waxaanu ku guulaysanay in aanu ka helno dhaqaale xoog leh waddanka gadar, inaanu ogolaano xidhmooyin shidaal ah oo in u ogolaano waddanka gadar oo aan teknolojiyad fara badan lahayn laakiin leh kambaniyo dhaqaale haysta, inaanu u ogolaano xidhmooyin fara badan oonu xiriir kula yeelano oo waddanka shidaalka ku jira ka mid ah inay iyagu soo saaraan oo iyagu ay doontaan oo la yimaadaan kambaniyadii intay la shirkoodaan la qodi lahaa si ay sheerkooda uga helaan. oo 10kaas xidhmo ugu yaraan gadar kambani ah oo dhaqaale haysta iyo kambani u wato teknolojiyadii iyo dhaqaalihiiba haysta ay shirkad sharing ah ku noqdaan xidhmo walba. annaguna oo ka faa'iideyna dhinaca gadar inay nagu taakulayso dhaqaale ballaaran, dhismo ciidan, qalabayn dhinaca hubka ah oo si farsamo oo yaryar oo kala dambaysa naloo siinayo oo aanu doonaynay inaanu kula wareegna awoodda dalka. waxaanu tixgelin dheeraa siinaynay wakiilada ay gadar noo soo dirsato annagoo danaha naga ilaashanayna ilaa xaddii aan ogolaanay in kursigana lagula fadhiyo. fashil walba ha nagu ahaato maxaa la dhihi jiray maxay guddantiibuu fuudka ugu jiraa oo kale marxalado ah yaanu la soo marnay annagoo garanayna inay tahay arrin kharaad in waddanka iyo ummadda dhexdooda ay faashil ka ahaato in kursiga la igula fadhiyo, haddana magaciisii dantiisu ugu jiraa inuu mahmaaha la dhahaa jirtay. anu aada uma garanayo mahmaahda, aada uma garanayo mahmaahda yaa jirtay. marka mahmaahdaas annagoo adeegsanayna waxaan macnihii na soo martay oonu aqbalay inaan nalagula fadhiyo kursiga. waxaas oo halgana waxaan u maraynay oona ogolaanayna in kursiga nalagula fadhiyo waa danta soomaalida, danta ummadda soomaaliyeed yaanu ilaalinaynay sidii